bisha ay tahay 27 August sanadka 2017 lagu soo gabagabeeyay halkan shir ay isugu yimaadeen wafdi ka socda khaatumo iyo madax ka tirsan Somaliland waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan koow waxaanu tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buuhoodle dhawaan ee dhex maray labada reer ee walaalaha laba waxaanu bogaadin iyo hambaliyo u diraynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka howlgalay ilaahayna ku guuleeyay inay soo afjaraan shaqadii halka ka dhacday saddex waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan Buuhoodle afar in maamulada Garowe iyo Muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Somaliland guud ahaan gaar ahaanna Buuhoodle shan in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buuhoodle ay ka mas'uul yihiin labada maamul ee Garowe iyo Muqdisho lix in siiba maamulka Puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland toddoba in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya in Somaliland marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka Somaliland laguna burburinayo wada hadallada Somaliland iyo Khaatumo sagaal waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay'adaha diyaaradaha inay fasax la'aan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda toban waxa la magacaabay guddi laba geesood ah oo talo bixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay intaas qodobaas 10 qodob ayaa lagu heshiiyay oo ka soo baxay shirkii noo soo gabagaboobay maanta aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hortiina ama saxaafadda iyo inta hawada inagala socotaba hortooda lagu kala seexday qodobadaas baa lagu heshiiyey waad ogtiin oo wada hadalka Somaliland iyo Khaatumo haatan muddo sanad ah bay soo socdeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadda meel ay marayaanna waa meesha wax ku oolka ah shirkan dee shirarku iska socon maayaan in lasoo afmeero oo lasoo afjaro baan laga maarmayn waxaa haatan guddi loo saaray oo labada dhinacba u saareen guddi 8 xubnood ah 4 iyo 4 oo shaqadoodu noqonayso inay soo diyaariyaan shirweynaha la iskugu imaan doono maxaa ajandiisu noqon doonaa tirada ergooyinka ka soo qayb gelaya maxay noqonayaan madasha shirka lagu qabanaya xaggee noqonaysaa muddada shirku soconaya intay la ekaanaysaa shirkaasna waa mid weliba Khaatumo iyo Somaliland la rabo in laga sii salballaariyo war haddii ay jiraan cid dhul bahanta oo aan Khaatumo ahayn waa albaabku waa u furayay waa ka soo qayb galaya ama gobolada SSC iyo Sooliisana u dhashay Somaliland ta kale shacabkeedana iyo waxgaradkeeda iyo dhaqankeedana waa mid insha Allah doorkooda ay ku yeelanayaan waa shirkii la doonayay in
wax kastoo khilaafaada oo somalilan ka jira lagu soo afbeeri lahaa in sha allahu tacaalana israac dhab ah iyo wada shaqo nuxurkuna waxa weeye war khaatumo calan leh oo dawlad gaara ah haatan halkan laguma hayo somalilan sidan ku socon karta oo ku dhaqmaysa oo sidan ay dan ugu jirtana meesha laguma hayo sidee maamul wanaagsan oo somalilan ah oo dawlad aynu u dhannahay u wada samaysanaa oo loo samaystaa oo raalli uga wada nahay nuxurka loo socdaa waa intaa weeye in sha allahu tacaala haddii shirkaa la iskugu yimaadana waa loo imaanayaa waxaa la qabtay guddi farsamo oo 8 xubnooda 8daa xubnood bishan soo socota oo September oo hadda dhalanaysa 5teeda ayay iskugu imaanayaan magaalada Caynaba waxay awood u leeyihiin inay hawshooda ku soo dhamaystiraan ilaa 12 bisha September soo socota markay hadii ilaahay garto markay iyagu intaa abiyaan 16 bisha September soo socota ayay ku soo celinayaan guddidaasi wixii ay soo diyaariyeen madashii loo dhamaa ee laga diray ee laba geesoodka ahayd oo tan ah markaas halkaas finally la iskula qaadanayaa wixii guddidaas keentay iyo shirweynaha wixii la soo diyaariyay waxaana la isku soo noqonayaa oo si dhan la iskugu soo noqonayaa waa 16 bisha 9aad ee haatan fooda inagu soo haysa 2017 insha allahu tacaala guul iyo tawfiiq baanu ku inta aynu qabanay iyo inta soo socota baan ka rajaynaa wassalaamu calaykum cali khalid qalay waa madaxweynaha khaatumo dhigiisu waa siilaanyo meesha ma fadhiyo calina ma fadhiyo laba waxaan ku fadhinaa labadii guddi ee wada hadalka soo wada ilaa ardsamo ee jirta waa system dadkaasi doorteen madaxweynaheeda iyo baarlamaankeeda iyo golaheeda wasiirada leh wada hadalkan inta aanan bilaabin dastuurka Soomaaliland waxa ku dastuurka ee Khaatumo state waxa ku cad in aan wada hadal la furno Soomaaliland iyo cid kale wax la isla wada ogyahay ninkii wixii dastuurkayga ku qoran ka soo horjeesta ama madaxweyne ku xigeen ha noo ahaado ama wasiir ha noo ahaado adeer gaadhiga uu ka dhacaya hadda Soomaaliland heshiis waxaan ku dhahay ninkii ka hor yimaada wada hadalkeena wax ka qabtay annagu oo reer waanu ka qabanay waana isku kalsoonahay shacbiyada kalsoonideedii iyo taageeradeediina wada hadalkan uu ku jira oo aanu ku rajaynaa inuu ay ku kalsoon yihiin